saxnida sideed ku ogaatay nama seegana warkooda ka dhageyso radio Hiiraan Weyn wararkii ugu dambeeyay ee ku salaysan xaqiiqada oo dhexdhexaada dhameystiran hufan oo la soo xulay ka dhageyso radio Hiiraan Weyn udub dhexaadka warbaahinta السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا ونكسن دقيستيال كسر دواد وروحي دلكي دافع عالم كنجسو قاري قد بدو وين وركنا وحكم دا dagaal beleed sababay qasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud shir looga hadlayo la dagaalanka maalgelinta kooxaha ka soo horjeeda dawladda oo Muqdisho ka furmay Somaliland oo go'aan ka soo saartay heshiiskii magaalada Ankara ee ku wada gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya qoysas ku nool magaalada Muqdisho oo dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday inay joojiso burburinta lagu hayo xaafad cusub oo ku taala magaalada Muqdisho madaxweynaha cusub ee maamulka Somaliland oo magacaabay xubnihii ugu horeysay ee maamulkiisa akhbaaraadka dibadda qodobka door corona doornimadan waxa uu noqonayaa madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo xilkii laga qaaday soo gudbinta warkan waxa idin suura galiyay shirkadda isgaarsiinta Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba inta maqashay waxay ahayn qaar kamid ah qodobada ugu door karoon warka doornimo ee Hiiraan waa 14 December 2024 ku soo dhawaada warkaas oo faahfaahsan Cabdiyar iyo Saare Gabre ayaa si wada jir u soo jeedinaya waxaana farsameynaya Cabdiqani Cusable dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beelood ayaa waxa uu ka socdaa deegaano hoostaga degmada Wabxe ee gobolka Galgaduud waxaana dagaalkani ka dhashay qasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac sida wararkan ku helnay dagaalka ayaa qarxa shalay subax waxa uu na socday ilaa iyo shalay galab waxaana wararkan helaynay sheegayaan in saaka mar kale dagaalkaasi uu dib ugu qarxay deegaanadii shalay lagu dagaalamay dagaalka ayaa u dhaxeeya laba maleeshiya beelood oo ka soo kala jeeda degmooyinka Wabxe iyo Gurceel mana jirto ilaa ay hadda dadaal socdo dagaalka lagu joojinayo mana jiraan wax war ah oo markaasi dagaalkaasi ku saabsan oo ka soo baxay maamulka Galmudug iyo dawladda Soomaaliya dagaalkii shalay waxa ku dhintay dad gaaraya 5 qof oo ka soo kala jeeda dhinacyada dagaalamay lamana og ilaa hadda qasaaraha ka dhashay dagaalkii saaka dib ugu qarxay deegaano ka tirsan Galmudug ayaa waxa ku soo badanaya dagaal beeleed salka ku haya isku dhacyo aanooyin qabiil waxaana marar badan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ka dhacay dagaalo dhaxmaray maleeshiya beeleed markaasi wada deegaanada maamulkaasi dagaalanka maalgelinta kooxaha ka soo horjeeda dawladda ayaa maanta waxa ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadam ayaa faafahinay warkan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa maanta furay shirweynaha iskaashiga dawladda iyo ganacsiga iyo bulshada qorshaha ka hortagga la dagaalanka maalgelinta waxa ay ugu yeeraan argagixisada ujeedka shirkan ayaa ahaa in dawladda iyo ganacsatada iyo bulshada ay iska kaashadaan la dagaalanka maalgelinta al-shabaab iyadoo la bartilmaameedsanayo dadka la shaqeysta al-shabaab iyo kuwa maalgelinaya waxaana cidii lagu hela dambiga noocaas la horgeyn doona cadaaladda Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in caruurta yar ee al-shabaab ay u adeegsadaan dagaalka qofka baadiyaha jooga ee Soomaaliyeed ee miskiinka ah ee neefafka adiga leh ayay xoogaan u baahan
ka qaataan beerta ninka qofka beer gacantiisa ugu qotay oo miskiinka ah leh ayay weliba dhowr jeer ayay ka qaadaan maxaan lahaa ay xoolo ka qaadaan oo miskiinka ah marka dadkii Soomaaliyeed oo dhan ayaa maanta uu hadalkani ku wajahan yahay oo u jeeda laakiin kambaniyada iyo bangiyada kaliya ma aha waxaan iyo wax ka daran oo isa sii soconaya iyo waxa dayaabto intaba waxaana weeye ilaahay wuxuu bini'aadamka ku fadilay oo xoolaha kaga duway oo takaaliifta u saaray oo madaxda uga dhigay oo loogu sakhiray wax walba asaga sidoo kale wasiirka awqaafta ee arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Row Cali Abu Mansuur ayaana shirkaas wuxuu ka sheegay in caruurta yaryar ee al-shabaab ay maalgeliso si ay isugu biimeeyaan dagaalka wuxuuna sheegay in arrintaasi diiniyan ay ka soo horjeedaan sidoo kale waxa uu sheegay wasiir Mukhtaar waxa haatan al-shabaab ay sameynayaan oo ah in caruurta yaryar ay dagaalka geliyaan taasina ay tahay fikir xun bulshadana loogu baahan yahay in lagula dagaalamo arrintaasi qofka waan cilmihi fiima amila bihi tabahu wa fiima anfaqa marka hore shirinka la xageed ka keen ma soo dhacday ma waalidkaaga ka dhaxshay ma ganacsiga ku keentay ma mas'uul baad ahayd oo xogta dawladda soo dhacday ma shirinka xageed ka keentay waa su'aasha meesha taalo maalinkaas waxa ka dambeeyo ka sii daran marka maadaama shirinka la isweydiinayo culimadu way cadeeyeen nimanka inaan la siin karin waxa dhamaanteed waajib nagu ah inaan la siinin oo loo diido hadii lambar ku soo waco uu ku yiraahdo lacagta barta ku shub ama waa ku dilaya amniga ma la xiriirti adahay lambarkaas waa ihandada yaani hooshayda hal isku jirto madaxweynaha cusub ee maamulka Somaliland ayaa waxa uu magacaabay xubnihii ugu horeeyay ee maamulkiisa Yaasiin Axmed ayaa soo jeedinaya warkaan madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Maxamed Ciro oo xilka si rasmi ah ula wareegay maalinimadii Khamiistii la soo dhaafay waxa uu maanta qaaday tallaabadiisii ugu horeysay isaga oo sameeyay magacaabis Cabdiraxmaan Ciro waxa uu injineer Xuseen Aadan Ciga Deer u magacaabay inuu noqdo afhayeenkiisa waxaana uu noqonayaa mas'uulkii ugu horeeyay ee la magacaabo waxaana go'aamiyay in injineer Xuseen Aadan Ciga Deer laga bilaabo taariikhda maanta inuu noqdo afhayeenka madaxtooyada Somaliland ayaa lagu yiri qoraalka wareegtada sidoo kale waxaa la filayaa in maalmaha soo aadan uu qaado tallaabooyin kale oo magacaabis ah waxaana sidoo kale uu soo dhisi doonaa golihiisa wasiirada xukuumadda cusub waxaa looga fadhiyaa isbedel iyo inay wax ka qabato xiisada ka taagan gobolada dhinaca bariga fog ee Somaliland madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxa uu maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 14 bisha 12 2024 uu wareegtay madaxweynuhu ku soo saaray magacaabista afhayeenka madaxtooyada Somaliland madaxweyne Ciro ayaa ku soo baxay doorashadii madaxtinimo ee dhawaan ka dhacday Somaliland isla markaana uu kaga guuleystay madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faysal Cali Waraabe kadib markii codadkii ugu badnaa uu ka helay doorashooyinka ka dhacay guud ahaan Somaliland magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa banaanbax ka dhigay hooyooyin Soomaaliyeed oo u badnaa dan yar kuwaas oo la sheegay in laga barakicinayo xaafadooda oo ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxay ku baaqeen in si degdeg ah dawladdu ay uga noqoto go'aanka si gaar ah waxay eedeyn ugu jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ay ugu baaqeen inaan la barakicin maadaama ay yihiin dan yar dadka ay dalkan ay u soo halgameen burburka muddadii mid ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho isla markaana dawladdu waxay ka dalbatay inay joojiso burburinta lagu sameeyo xaafad cusub oo ku taala Muqdisho laamigan fadhiisana meel mahay والله العظيم نصبات مقالة مكلياني حالتنا عادي معها وحوبانا إن وحنا ولا قبته هيو إلينا الدوية ميل عفصارين ملا نص دولار نكوكورنا ما هيتنو ولا علينا Soomaaliya أنا أم حارمني مدن كينيا كورنا الدوية سلاني ما تيجرتونا لقى سوغارو وحما أودني باورع ما هيتني أقوانا قبنا مريسان ليناي ما تيانا دردقوا علينا ميلا دردقوا وادنا ولا ilmeen ma ka tagi karno agaf ayooy waa kana la dhooya waarin digaana karsooy waxaan ku cuno ma haasti
والله وما سيراي لوك أقونا لياي الماء إذا نما كنا معدن حتى شو محمود وعن كعبتنا إنه وحي قبته الماء قال مذوق يدول كاسو كنا ماي حرم يا وأنا بركينه مي قبته حتى شو محمود واكو أقوان واي إذا ما تقرقر واي أبيس قرقر إن وحلي قبته وقول لي يلا دلي جورنا نجورا يلا هذي نجورا قاعد قوسة جايسيو ميلا يلا أنا ميلا هذا ملا واعبه وقعبه ناس جمعهم بنانك لا ميكان فدي سنة ميل ماي والله العظيم نصبات مقالة مكولي يعني حمال عمل أنا ماشي ناس كده جنين صدق سنة علمي عندنا علم هذا يكوانه أيه أنا waa tahay dhegeystayaal warka duhurnimo ee hiiraaweyn ayaad weli dhegeysanaysaan qodobada gudaha ayaa intaa inoo jooga dibadda intaan aadin ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha Cristiano Ronaldo Messi Ribery Van Persie Pirlo xubinta ciyaaraha warka duhurnimo kulamo waaweyn ayaa maanta jiri doono si guud haddii aan eego ciyaaraha waxyaabaha ugu waaweyn laga qoray xulkana qaranka 17 jirada Soomaaliya ayaa diyaar garowgii ugu dambeeyay ku jira Kampala ku sugan yihiin maalinta Britol ay ciyaari doonaan kulanka Afrikaanka Suudaan ay la ciyaari doonaan wiilashan koobkan iyaga ayaa ku soo guuleystay sanadkii 2022 Ethiopia ay ka keeneen mar kale ay doonayeen Kampala koobkaas in ka keeneen diyaar garowgii ugu dambeeyay ay xidigaha xulkana sameeyeen iyadoo xidiga laga xulay Muqdisho iyo sidoo kale ciyaartoy dibadda ka imaaday ayaana dabcan Uganda la isku geeyay halkaas ayana diyaar garowgii ugu dambeeyay ay sameeyeen maanta kulamada adag jiri doona horyaalada waaweyn Yurub Ingiriiska haddii aan eego dhammaan kulamada 12 soo gali doona ciyaaraha ugu waaweyn xiisaha badan haddii aan eego saxda kulamada 12 soo gali doona Leicester City iyo sidoo kale kooxda Newcastle United 12 kala daawan doona Wolves iyo sidoo kale kooxda Switch Town 12 kala daawan doona Liverpool iyo kooxda Fulham 12 Arsenal iyo sidoo kale kooxda Everton 12 soo gali doonta Spain kulamada jiri doona Espanyol ayaa ugu soo horeysa Osasuna galabta 10 saac Girona iyo sidoo kale Bologna galabta 12 bar Real Madrid caawa 5 saac ay ciyaari doonta saaxiibka Real Vallecano ay Los Blancos la ciyaari doonta halka sidoo kale Atlanta ay ciyaari doonta Serie A Gigler ay la ciyaari doonta galabta 11 saac Juventus caawa 4 saac 45 daqiiqo Venezia ay la ciyaari doonta halka sidoo kale dabcan Jarmalka kulamada jiri doona Borussia Dortmund waa yiraahday Bayern Munich Mainz ay ciyaari doona Mönchengladbach iyo sidoo kale kooxda Wolves Union Berlin iyo sidoo kale kooxda Paderborn Bayer Leverkusen galabta 12 bar ay la ciyaari doonta kulamadaas ayaa ugu waaweyn laga ciyaari doona horyaalada waaweyn Yurub aan dib ku xuliyay studio qaybaha ka arsan warka Roman Drogba Rosicki Silva yahay Cabdimajid oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha markan aqbaraadka dibadda iyo qodobka u door karoon madaxweynihii Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa maanta xilka ka qaaday golaha qaranka oo maanta fadhi degdeg ah ka yeeshay tallaabadii uu qaaday ee la xiriirta xaaladaha degdega ah oo markaasi galay dalkaasi madaxweyne Yoon ayaa waxa uu waayay kalsoonida kadib markii xitaa xubno ka tirsan xisbigiisa ay taageereen mooshinkaasi oo sababay xilka qaadistiisa si looga hortago qalalaasihii ka dhacay dalkaasi waa sida hadalka loo dhigay afhayeenka golaha qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in codeynta xitaa ay u dhacday si degan oo waafaqsan xeer hoosaadkana uu ku shaqeeyo golahaasi codeyntana ayaa waxay u badatay in markaasi madaxweynaha uu xilkiisa ku waayo warkii aad kala socotaan warbaahinta Hiiraaweyn dhageystayaal waa nageynta cidda cidii uu sheegay waxay mar kale dib uga daalan karaan isagoo maqal iyo qoraal ah page-ka internet ku leenahay hiiraweyn.com ama .net wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageyso idaacadda Hiiraaweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daaraca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiiraweyn.com ama hiiraweyn.net Radio Hiiraweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa uu wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraaweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barka internetka ee hiiraweyn.net ama hiiraweyn.com
الرحمة سبيشاليست هوسبيتال guud ahaan arladeena halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtay ha yeeshee aqoon iyo adeeg caafimaad baa inta la isku dhaafay isbitaalka takhasusiga alraxma intii aad u aragto adeegii heshayba aqbasho ammaantay see weeye agabkii u dambeeyay dhaqaatiir aamin oo aqoontoodu sareyso isbitaalka alraxma ummaday ku macruuf ah saasa la kofaday ish ala tayadiisa qalabkiisu amaanan bukaankii arkaan aqbalayn meel kaleeto isbitaalka alraxma waa isbitaalka ugu kalsoonida badan gobolka Hiiraan kuna guuleystay daaweynta iyo qaliimo kuwaasi oo loo fidiyay tiro badan oo bulshada kamid ah waxaana ka hawlgala dhaqaatiir wada takhasusi ah oo kamid yahay Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ah khabiir caafimaad una adeegaya bulshada muddo ka badan 10 sanadood isbitaalka waxaad ka helaysaa adeeg caafimaad oo dhameystiran kuwaasi oo u aadi lahayd dalka gudihiisa sida Muqdisho ama dibadiisa sida India isbitaalku waxa uu leeyahay qaybta bukaan jiifka qaybta bukaan socodka iyo waliba umulsaafar 20 saac isbitaalka takhasusiga alraxma waxa lagu soo kordhiyay qaybta qaliimada iyo daaweynta lafaha murqaha kala goysyada iyo seedaha